waxaan leeyahay iyagu gacanta iyo gacmaha kulligiinba. Okay, maanta waxaa inoo hayaa maanta challenge mahay, laakiin waxaan isku dayayaa maanta inaan ka sheekeeyo dhibaatooyinka Yurub ka jira. Yurub waxaa ka jira dhibaatooyin fara badan, iyadoo dib la isku dhibaatooyinka faraha badan la wada ogaaba haddana waxaa soo kordhay dhalinyaradii waa iska halaabayaan. Macnaha marka la way halaabay aniga waxaan naqaana way lumeen, hebel waaba la waayay, macnaha wuu kuu gooyay, araggiisa dambe lama hayo. Facebook aad galaysaa ama YouTube-ka ama dee meelaha dadka Soomaalida ama social media oo dhan bade. Marka kulba aaladda isticmaalaysid sidaad dhex marisid waxaad arkaysaa hooyo Soomaaliyeed oo leh inankay baafin hebel oo noogu dambeysay 4 sano ka hor 5 sano ka hor. Waxaad arkaysaa gabar Soomaaliyeed oo hooyada dhahayso hooyadii waxay ugu dambeysay 8 sano ka hor. See wax u jiraan marka halkay wax ka khaldan yihiin? maxaa kalifay in maalin kasta qof la raadiyo? dadkan la raadinayo dee qof horta hadduu xanuunsanayo dee maskaxdiisa aysan joogin waa la garay, waa waxa dee waa loo garaabi karaa hadduu xanuunka lahayo sidoo kale. laakiin hataa hadduu xitaa xanuun hayo waa la ogaan lahaa xaafadoodu haddii isaga inta la arkin qof ay sii qaadaanba arkaya ama asxaab kale unba arrinka gudbinaysa. waxaan fahmi waayay marka oo la isweydiiyaa say wax u jiraan. maalin kasta Facebook dee hooyo booranaysa iyo gabar Soomaaliyeed oo dhahaysa hooyadii waa dhuntay. intii kulan xitaa Afrika kulanta lagu dhihi maayo dee halkay ku kulantay Yurub dee kulantay siiba Jarmalka bahal galeen ba noqday sirni. qofkii 20 jirka ah ama 18 jirka ama ka weynaa waa iska noogu lumay. ma bijo argiisi lama hayo 6 sano xabadooda meesha maqla argiisa codkiisa lama hayo. markaasi halkay wax ka khaldan salaadu halkay ka xidhmanaa dadka iska lumay iyaga xoolo miyaa macna maalintii soo taariibayeen waa dadka soo mariyeen saxaraha ogaay Liibiya saxaraha iyo balaayada soo dhex qaadeen meel luminde meeshaas ku weynoo soo waxay iska imanayaan qayb tartiib qurbiyo bara soo galaya qurba waa lumiya marka miya warniyo wallahi wayaab qof dharood garanaysid baa lagu oranay urur war hebel iyo oran oo dibis. mid kale dhibaatada weyn jirta waxay tahay dad marka Yurubta yimaadaan ma aqaan Yurubta malaha dee wax kale ka aaminsan yihiin ma aanu isir waxaan laga aaminsan yahay weli la aadeeran ma arkin. waxaan laga aaminsan yahay Yurubta ilaa hadda ma arkin yaalo wallahi. marka waxaa arkaysaa dhibaatada ku in haysata waxa weeye familkii ma wacan. dadka qaar familkii ma wacan lama xiriiraan waddanka waxa ku wadan qof Afrika joogan dadana Afrika ka maad bay ku warayaan war shalay uu ka yimid hadda tahriib ku soo maray dadkaas ka soo saaray meeshaas sabaa magafu madaxa ka saaray maama kaliya la baxaya hadda iga soo gaaro weydeen waa la idilaya soo diga shalay sabaa. marka maanta kan timida in yaro xogaa afar eero iyo konton soo galeen ma xaafadii goynaysa marka niyo in waddanka laga warhayo weliba familka waddanka dee qofka rabaa ka warhayo qofka roobaniyo ka warhayo makaraysa laakiin familka ku dhaw inaad ka warhaysid aad buu wanaagsan tahay. sababtoo ah waxaad arkaysaa maalin kasta qof barooranaya wuxuu la barooranaya garamaysa laakiin wuxuu u barooranaya inankiisa ama inantiisa waa dhuntay waa la waay araggeediiba 6 sano lama hayo way guus. haddii aad maqashid gabadh baa Yurub loo lunto la waayay si kale uma lumin Yurubta la haystaa markaa jawigeeda diidanta in laga fahmo luqay ku jirta xafadoodana ma wacayso. haddii maqashid wiil kale isna la waayo hebel baa maalmahan balalaaya haddii maqashid isaguna beerta ku jiraaniyo meelahaas wareegaya andhaan weeyaan soo qabato laay meeshan iyo Yurubta way iska xaalada badan tahay. marka xaaladaha haddii inagu ka hortagi weyno uu qof wada dariiq toosan mari waayo allihiis ku xidhnaan waayo oo wallahi meesha way iska hawlo badan aad ba hawlo badan tahay aad iyo war meelahan ka filan baa laga siinaya wallahi waxyaabaha yaabaysid. marka waxa wanaagsan dadka qaar kula talinayaa dad waxaas ka jiranayo iska qalbi jilicsan oo waxyaabaha qaar ka iska raacay makaraysa
maqashid ilaahay walaa soo hanuuniyo xaan kaloo hanuunsanayaa wallahi. marka yurubta way iska aad bay u hawlo badanta yurubta wixii lama dhex gali karo. dhalinyaradan waxaa wanaagsan wiilay gabarba dhammaanteen ba ilaahayna soo hadeeyo, laakiin waxaa wanaagsan in markasta fahamka laga warhayo, la waco. muhiim maaha un dee inaad markasta 10 eer ama 20 eer u dirtid ma garanaysaa. tusaale ahaan baan ka wadaa inaad lacag u dirtid muhiim maaha, laakiin waxaa ka muhiimsan codkaaga ay maqlayaan xaafadiina. hadda maanta hooyadaa wici weyda bir walaashaa wac, saa dambe shaarka ku xigsi, saa usoo wareeji, ha lagu soo duceeyo. meeshan meel maahan ya magacaasa wallahi meeshan meel maaha. waa xaalad iyada dhanba, iyadoo xaalad la ogyahay qof kasta uu ogsoon yahay, haddana fahamka cidnaa wacayna qofka wacaya hadda inta yaroo iska ducaysano wanaagsanaya wadanka fahamka oo ka warhaya. inta yare luntana de kuwa lumaya, kuwa iyaga lumaya waa kuwan fahamka warhaya loo garaysa. haddaad maqashay hebel waa lumay oo ku daayay araggiisa lama hay bilooyinkan boo la waayay maxay waa la sameeyey. haddaad maqashid waa qof aan xaafadooda xidhiidhin wey, inkaar baa ku socota marka isaga dhanba way inkaarsan yahay ma garanaysaa. qof markaa inkaar ka socoto soo xaafadooda ku caabade isagaa jawi kale ku jiray. uniyo dadka markaa qurbaha jooga waxaa kula talin lahaa dhammaantoodba dhammaanteenba ilaa aniga dee wadda aan koobankaaya weliba dhalinyarada weliba dee aan maskaxo ku filan lahaynoo qurbaha soo gala. laba waxaad garanaysa iyagoo yaryar wadankan kooway anugu tusaale ahaan garanayo anagoo de anba laftigaygu saas macnaa ma sii yihiin, laakiin anagoo wada yaryar dad badan wadanka ka ogaa waxaa arkaysa haddana yarkan waxoogaa inta ku yar weynaadaan lafta yar jiidhay ma garanaysa. ismoodayna dad waaweyn yihiinoo aan familkiiba ka warhayna. niyo familkan laga warhayo muhiim waa number 1. ilaahayna ha lagu xidhnaado. waxaana yurubta in la fogaanaynayo anu meeshan yurub ma arke waa wadan ma arka wadanadan bay lamid yihiin, laakiin yayn la fogaan. dadka qaar waa familkooda xidhiidhinaya. taas hata halkaa idhig ta familka halkaas idhig oo dhalinyaradan kula hadlay. war hooyooyin halkan waxaa jira aan dadka wadankii ugacinba ka warhaydeen. hadda maalin dhexaas waxaan arkay gabar Soomaaliyeed oo in soo dhahayso hooyaday 2000 iyo intaasay ugu dambeysay. waqti ka hore ay ugu dambeysay iyadoo soo tahribtoo yurubtaa gashay bay ugu dambeysay araggeeda baleeg waa hooyo wax dhashay. halkan ay islaamooyinta iska joogaan meelaha Facebook soo galaan bay iska sheekeynayaan carruurtoodana wadankii way joogaan kama warhaynayaan. war waxba idinkama rabta eedo adaan kula hadlaa de edo dadka de in carruurta xiriir iyo la hadal oo dhe bal maxaad haysaan la hadal dadki ka wardoon. asxaabta dhammaantii aad baa idin salaamaya. waxaan intaa maanta igu kalifay inaan ka hadlo ama aan sheekada ayna dumar waxaa keentay markastoo aan arko ama aan social media dhexdeeda ku jiro ama Facebook hoo badnaade baa qoraalaa ku arka meeshaas. marka dhalinyarada waxaan de qof hadduu xanuunsanayo oo kale haa waa loo garaabayo, laakiin xitaa niyo waxaan ilaa imka isweydiinaya qof yar joogo soo hadlaaba soo lumaa macna sabab hallo wadankii maaha de ayaasha raacaya ma Soomaalida qaybtana kala u taqaantaa ugu hadlaa wax u yaqaanaan xagga kale u yaqaanaan maaha halkaas lumay araggiisi waa loo waayay wey macna. marka dadkan iska lumay waxaa leeyahay niyo bal soo ilaahay soo hadeeye xagga familka u luma macna xagga familka loo lumo. familka muhiim waayo in laga waraayo wallaahi. marka asxaabta dhammaantiin waxaan leeyahay idinkana aad baa idin salaamaya. si shargareeya dad badan ba ka faa'iideysan doona. hadalka kaa yara iga soo baxay maqana waxba saa iga soo marmar deeqaas ka fadhiyo waxa iga soo fatahay dad maskaxda ka galaysa arkiiba soo hadlay dadkii wax khayr qabo ku hadlay wax khayr loo ku hadlay waxaa samaysaa idinkuna wax khayr la ku soo hadlo oo waxaan soo sheego kaas inta lumi lahayd lumine lumitaanka ma fiicne ilaa asoo waa isku lumiya niyo naga tahay lumitaankaas kowdhe familka wac familka lagu lumo macna soo tosto hooy seeta carda laba daqiiqo kaliya hooyada gaadis ama walaasha ama xaafadiina qof kamid ah farxad baad dareemaysaa niyo. intaan xaafadiina la hadina wahsi iyo balaaya ku saaraan si xaajis aan jirin hada dhan waxaad noqonaysa madax buur ma garanaysaa. marka familkan in laga warhayo wallaahi aad bay muhiim u tahay. asxaabta dhammaantiin sidoo kale aad baa idin salaamaya. waxaan leeyahay dee bal dadkaas lumaya la sheegayna ilaahay ha soo hadeeyo.
ha usoo dhib yareeyo dadka faamiladooda macnaha bal insha allah inagana ilaahay wax khayr qaba inala kulmiyo. meeshan waa iska joog kale yaa waxaan idin leeyahay marka asxaabta dhammaantiin dee janaalkaygana kala kiciya, saa idin kala kicina usii kala kiciya magaranaysaa. faamiladana ha lagu waasho wicitaanka maalin kasta, laakiin ma dee xabadda way ku karaysaa wallahi. nacaskiiba baan ka soo hadlay arbaa beene wallahi. hadda maalin kasta xabadina hadashid adigana ajri iyo xasanaad baa kugu jira. inta hoodaa leedahay hoodana farxad ba dareemaysa, adna waxaa dareemaysaa wallahi farxad kale. maalin kasta waa xabadina hadashid ducaa lagu soo saaraya. ilaahay gaalada aabihi hooyaa kaaga dhig waxbaas u soconaya niyo adigna ku anfacaya. laakiin inta isleedahay xabaddaa waxbay ku weydiinaya xaasidiis naftaada xaasidin niyo, naftaada xaasidin ya waxaan leeyahay niyo saas iyo